أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Cantar Sayd Xuseen. waxaan soo wadnay casharada aan uga hadlaynay Excel 2013. casharkeena maanta waa casharkii saddexaad. casharkeena maanta insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan ku barano sida loo soo geliyo isla markaasna loo tirtiro column wax loo yaqaano. sidoo kale casharkeena waxaan ku baranaynaa sida loogu soo darsado amba loo tirtiro sidoo kale rowga waan baranaynaa insha allahu tacaala. sidoo kale waxaan ku baranaynaa sida cabirka columnka amba rowga wax looga bedelo haddii uu kugu yaraado amba uu kugu ballaadho columnka amba rowga. sidoo kale waan baranaynaa insha allahu tacaala. waxaan kaloo baranaynaa sida loo qariyo isla markaasna loo soo saaro columnka amba rowga, amba column kaa qarsan amba row kaa qarsan, sida aad usoo saaro lahayd oo arki lahayd. ugu dambeyntii waxaan baranaynaa sida loogu daro isla markaasna loo tirtiro wax loo yaqaano comment. oo waxaan sameynaynaa insha allahu tacaala comment ayaan sameynaynaa oo cell ayaan comment ku sameynaynaa. isla markaasna waxaan baranaynaa si aan wax uga bedeli lahayn isla markaasna aan u tirtiri lahayn commentkaas aan cellkaan ku darnay. haddaba haddaan imaano excelkan, haddaan imaano inta waxaa noogu diyaarsan table ayaa noogu diyaarsan. wuxuu noogu diyaarsan yahay qaab oo transactional data ahaan ayuu noogu diyaarsan yahay oo row kastaba wuxuu noqonayaa transaction ayuu noqonayaa. annagoo casharada soo socda si fiican aan ugu baran doono waxa la yiraahdo table, waxa la yiraahdo data, waxa la yiraahdo information, sida data aan uga soo saaran lahayn information anfacayo. insha allahu tacaala casharada soo socda ayuu noogu socdaa. laakiin hadda waxaan rabnaa oo keliya in aan u qaadano tablekani sample ahaan inaan u qaadano, in aan wax yar aan ku sameyno wax loo yaqaano casharkeena maanta in aan ku barano oo keliya ayaa u baahanahay. muhiimad gooni uma sii laha maanta casharkeena in aan sii ogaano wax meeshan ku qoran. haddaba haddii aan ka bilaabo ciwaanka ugu horeeya casharkeena oo ah sida loo soo geliyo isla markaasna loo tirtiro maxaa loo yaqaano columnka. haddaba haddaan u baahanahay inaan meeshan column aan kusoo daro, waxaan ugu soo diri karaa oo meeshaan sare markii ay noqoto flaar hoos u taagan markay noqoto ayaan dhinaca bidixda left click ayaa loo yaqaanaa. saa ogtiin muuska laba dhinac ayuu leeyahay. dhinacna right click waa dhinaca midigta waay, dhinacna left waa dhinaca bidixda waay. haddaba dhinaca bidixda ayaan hal mar click siinayaa. xarafka korkiisa columnka korkiisa xarafkiisa ayaan click ku siinayaa. haddaba wuxuu select garaynayaa columnka oo dhan ayuu select garaynayaa. haddaan u baahanahay marka column kale inaan kusoo daro nameka iyo item descriptionka inta u dhexeysa, haddaan u baahanahay inaan column kusoo daro, marka columnka aan select gareeyo amba aan highlight gareeyo anoo isticmaalayo dhinaca bidix muuskeyga click ku siiyo ayaan waxaan leeyahay dhinaca midigta oo right-ka ayaan click siinayaa muuska. waxaan leeyahay insert ayaan leeyahay oo dhinaca bidixda ayaan click siinayaa muuska oo left click ayaan siinaya. haddaba meeshan waxaan kusoo daray wax loo yaqaano hal column oo cusub ayaan kusoo daray. haddaan u baahanahay inta ayaan wax ku qorqori karaa si aan waxaan u baahanahay aan ugu qoro. haddii aan u baahanahay marka columnkani in aan tirtiro, sideen ku tirtiri karaa? waxaan tegayaa qaybta sare ee maxaa la columnka dhakadiisa sare amba xagga sare ayaan tegayaa. okay, dhinaca oo bidixda ayaan click siinayaa, right click ayaan taabanayaa, delete ayaan leeyahay, meesha ayuu ka baxayaa. haddii aan u baahanahay for example in aan soo geliyo wax ka badan hal column, dabcan waxaan imaanayaa xagga sare ayaan imaanayaa, laba xaba ayaan highlight garaynayaa, right click ayaan leeyahay, insert ayaan leeyahay. dabcan saa ujeedaan laba column ayaan soo geliyay. haddaan u baahanahay labadaas column inaan ka takhaluso waan highlight garaynayaa anoo isticmaalayo left click ayaan isticmaalayo, right click ayaan leeyahay, delete ayaan leeyahay, meesha waan ka saarayaa. sidoo kale rowgana waa saas ayuu lamid yahay. haddaan u baahanahay hadda Cantar iyo Hana dhexdooda inaan soo geliyo wax loo yaqaano hal row, haddaan u baahanahay inaan soo geliyo, okay, Hana korkeeda ayaan dhinaca rowga ayaan imaanaya, numberka korkiisa ayaan click ku siinayaa. markii aan doorto waxaan isticmaalayaa right click ayaan isticmaalayaa, insert ayaan leeyahay, waan soo gelinayaa rowga. sidaas ayaan u isticmaali karaa. haddii aan u baahanahay rowgan inaan tirtiro, okay, click ayaan siinayaa, right click ayaan leeyahay, delete ayaan leeyahay. what about haddaan u baahanahay mid wax ku qoraya inaan tirtiro? dabcan kan aan rabo inaan tirtiro ayaan click siinayaa, dhinaca rowga ayaan click siinayaa, right click ayaan leeyahay, delete ayaan leeyahay, meesha wuu ka baxayaa. haddaan u baahanahay in waxaan hadda aan tirtiro inaan soo celiyana control Z ayaan isticmaali karaa. control Z waa undo waaye, wuu soo celinayaa waxaad tirtirsid. sidaas ayaan u isticmaali karaa.
for example haddii aan rabo in aan maxaa la dhahaye columnkani cabirkiisa aan rabo inaan wax ka bedelo oo aan isku soo cariiriyo dabcan waxaan imaanayaa qeybta columnka geeskiisa ayaa imaanaya columnkaan rabo inaan isku soo cadaadiyo geeskiisa ayaa imaanaya markuu noqdo maxaa la dhahaye calaamad 4 dhinac usii jeedo okay left click ayaan qabanayaa dabcan dhinaca rabo ayaan u jeedaya haddaan dhinaca bidix u jeedayo waan u jeedaya dabcan saa ujeedaan wuu isku soo aruuray sidoo kale haddaan u baahanahay inaan amountkan extending amountkan aan isku soo aruuriyo okay dhinaca rabo inaan iskaga soo aruuriyo ayaa imaanayaa left click ayaan qabanayaa waan cadaadinayaa saa ujeedaan wuxuu isku bedelay bam ayuu isku bedelay haddii aan u baahanahay markii in aan cabir asaga la-eg aan kusoo celiyo dabcan meeshaani amba meeshaan labadan dhinac kamid ayaan imaanayaa markii aan imaado double click ayaan siinaya double click markaasi cabirka asaga la-eg ayuu aadayaa oo control z haddaan dhaho qaab kaloo aan u sameyn karana wuu jiraa qaabkaas wuxuu noqonayaa haddii aan imaado geeska left click ayaan qabanaya waan ballaarinaya waan sii daynayaa qaabkaasna wuu sameyn karaa sidoo kale haddii aan rabo in namekani amba columnkani uu aan fit gareeyo amba aan la ekeysiiyo inta uu u baahan yahay maxaa la dhahay cabir ahaan okay kor ayaan imaanayaa double click ayaan siinayaa dabcan cabirkiisa ayuu qaadanayaa sidoo kale rowgana saas ayaan yeeli karaa markaan geeska aan imaado rowga waan jiidayaa wuu weyneynayaa haddaan double click siiyana cabirkiisa ayuu qaadanayaa marka qaarkood waxaan u baahanahay in aan column aan qariyo aan u baahanahay oo aanan arkinbo columnka aan qarinayo ayaan click siinayaa right click ayaan siinayaa hide ayaan leeyahay waan qarinayaa haddaan u baahanahay inaan dib u soo celiyo columnkii aan qariyey dabcan saa ujeedaan columnka meeshaan column ayaa ku jiro waa dareemi kartaa oo xarfahan labada xarafna iskuma xigo okay waan highlight garaynayaa labada column oo columnku ka qarsoon yahay ayaan highlight garaynayaa right click ayaan leeyahay unhide ayaan leeyahay soo saar dabcan columnkan f ayaa soo baxayo oo ibal qarsanaay sidoo kale haddaan rabo inaan labadaasaan qariyo right click ayaan leeyahay hide ayaan leeyahay wuu qarsoomayaa saa ujeedaan numberskan iskuma xigo 4 5 6 ayaa ka maqan okay labadan uu ku dhex jiro waxa qarsoon ayaan highlight garaynayaa right click ayaan leeyahay unhide okay ha qarin ayaan leeyahay soo saar wax meesha ku jiray ugu dambeyntii haddii aan rabo in aan comment aan kusoo daro comment wuxuu noqonayaa in aad faahfaahin yar u baahan tahay in aad ku lifaaqdid selka wax ku qoran faahfaahintaas ayaa wuxuu noqon karaa faahfaahin muhiim u ah qofka markii uu akhrisanayo in uu la fahmo haddaba haddaan cabdirasiid xuseen aan comment aan ka sameeyo aan faahfaahin aan ka sameeyo waxaan imaan karaa commentka right click ayaan leeyahay haddaba waxaan dhihi karaa insert comment waan dhihi karaa okay qaab kale waxaa jira oo aan commentka u geli kara oo ah waxaan imaanayaa reviewga ayaan imaanayaa new comment ayaan leeyahay qaabkaasna waan u sameyn karaa okay qaab saddexaad waxaa jira oo la xiriira xagga keyboardka la xiriira oo ah selka rabtid commentka inaad ku sameysid ayaa select garaynaysaa control shift f2 ayaa taabanaysaa sorry shift f2 ayaa taabanaysaa shift f2 markaad taabatid dabcan saa ujeedaan waxaa soo booday meesha commentkan ku qori lahaa waxaan leenahay waa macmiil fiican okay commentkaas ayaan sameynaynaa commentkaas marka wuxuu u sahlayaa qofka markii uu arko calaamadaas guduuda wuxuu dareemayaa in uu selkan comment u wato markaa u dhaweysid fallaarta dabcan wuxuu soo tuurayaa commentka ayuu soo tuurayaa haddii aan u baahanahay in aan ereyadan edit gareeyo wax meeshaan ku qoran commentka right click edit ayaan isticmaali karaa edit comment amba waxaan taabanayaa sidii hore aan kugu soo sheegay shift f2gi unbaa haddana taabanaya shift f2ga wuxuunu sameynayaa commentkii hore noogu qornaa inaan haddana aan edit garey karno oo mar labaad aan wax kusii dari karno waana arday aan ku qoraynaa okay haddii aan u baahanaha commentkan inaan ka tirtiro okay qaabo badan aan u tirtiri karaa oo right click ayaan leeyahay waxaan dhihi karaa delete comment waan dhihi karaa show or hide commentka mararka qaarkood waan qari karaa ma fahamno hadda wuu soo muuqdaa commentka meel kastaan taaganahay wuu muuqdaa commentka right click haddaan dhaho oo aan dhaho hide commentka wuu qarinayaa unless markaa u dhawaado muuska u dhaweeyey ayuu soo muuqanayaa haddii aan u baahana commentka inaan tirtiro delete comment ayaan isticmaali karaa amba waxaan imaan karaa waxa loo yaqaana reviewga delete comment ayaan leeyahay commentka sidaas ayaan ku tirtiri karaa oo sidaas ayuu ku baaba'ayaa commentkii aan sameeyey
I hope casharka maanta inuu ahay mid aad u xiiso badan. Intii cashar kale aan ku kulmi doono, casharkeena maanta intaas ayaan ku gabagabeynaynaa. Content informationkayga ayaa wuxuu kasoo muuqanayaa shaashada hortaada ka muuqato. Meeshaas ayaa igala soo xiriiri kartaa wixii aad tale igu soo birinaysid iyo wixii iga qaldanaya si xiisad intaba waa kugu soo dhaweynaya insha allahu tacaala. meeshaan ayaana kasii wadi doonaa casharadeena haddii ilaahay dhaho. subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.